kumanaan qof ayaa nolosha lagu gubay iyadoo in ka badan 2,000 oo haween ahna lagu kufsaday magaalada Goma ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Intaan ugu gudagalin warbixintan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay dagaalka ka socda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ee ku yaala qaaradda Afrika. Dagaalkaasi oo qaatay muddo ka badan 2 bilood ayaa waxa uu ka socdaa magaalo ku taala dalkaasi oo la sheegay in ay tahay magaalada macdanta hodanka ku ah ee dalkaasi ku taala. Dalal badan oo ay Rwanda ka mid tahay ayaa lagu eedeynayaa in ay taageerayaan fallaagada Ma-23 ee ka dagaalamaysa magaaladaasi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 100 qof oo dumar ah lagu kufsaday xabsiyada ku yaala dalka Congo gaar ahaan magaalada la yiraahdo Goma ee ku taala dalkaasi. Waxaa la sheegay in dumarkaasi ay kufsi u geysteen maxaabiis kale oo xabsiga kula jiray oo markii dambe xabsiga ka baxsaday. Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in 2,900 oo qof hadda la fahmay in ay ku dhinteen dagaalka fallaagada Ma-23 ay ku qabsanaysay magaalada Goma ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo intii uu socday. Waxayna aad uga walaacsan tahay Qaramada Midoobay dagaalkaasi sii soconaya ee magaalada Goma. Afayeen u hadlay hay'adda arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan Qaramada Midoobay ee OCHA ayaa waxa uu ku tilmaamay tirada dadkaasi in ay tahay mid aad u badan. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay aad uga xun yihiin waxa hadda ka socda magaalada Goma ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Kooxda fallaagada ah ay taageerto dowladda Rwanda ee Ma-23 ayaa waxa ay qabsadeen magaalada macdanta hodanka ku ah ee lagu magacaabo Nyambamba ee ku taala dalkaasi Congo. Inkastoo kooxdan fallaagada ah ee lagu magacaabo Ma-23 ay horey ugu dhawaaqeen xabad joojin, balse hadda waxaa la soo sheegayaa in ay buriyeen xabad joojintii ay iyagu marka hore ku dhawaaqeen. Dagaalka u dhaxeeya fallaagada Ma-23 iyo dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa soo bilowday January sanadkan 2024 iyadoo kooxdan lagu magacaabo Ma-23 intii ay dagaalka wadeen ay geysteen falal bini'aadanimada ka baxsan iyagoo falkaasi kula kacay magaalada Goma ee ay dagaalku ka soo bilaabeen. Waxaa la soo sheegayaa in tiradii ugu badneed oo haween ah la kufsaday intii uu socday dagaalkan oo hadda socda muddo 2 bilood ah ayaa waxaa la sheegay in ay tacadiyo badan ka dhasheen. Qaramada Midoobay iyo hay'adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanahana waxay aad uga walaacsan yihiin xaaladaha marka ka dambeysa isa soo taraya ee ku saabsan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo fallaagada ka dagaalamaysa magaalooyinka qaar ee dalkaasi. Si gaar ah Qaramada Midoobay waxa ay walaac ugu muujinaysaa haweenka la kufsanayo iyo sidoo kale barakacinta ka socota magaalooyinka dalkaasi.